madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku jooga dalka Djibouti ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo qasriga madaxtooyada Djibouti ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland markii uu ka degay madaarka caasimadda jamhuuriyadda Djibouti waxa halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga dalka Djibouti Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka Djibouti iyo waliba safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed waxaana madaxweynaha qadar nasasho uu ku qaatay qolka gaarka ee nasashada iyada oo loo sii galbiyay wafdiga madaxweynaha Soomaaliland dhinaca madaxtooyada Djibouti oo ay kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyadoo labada madaxweyne yeesheen kulan muhiim oo ay kaga wada hadlayaan danaha labada dal adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dhinac ee isu socodka arrimaha bulshada waxaana kaloo kulankaasi lagu soo qaaday sidii horeba ay labada dhinac iskaga kaashan jireen ka warhaynta iyo la socodka arrimaha nabadgelyada ee mandaqada waxa kulankan madaxweynaha ku wehelinayay labada wasiir ee arrimaha dibadeed ee Soomaaliland iyo Djibouti Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo Maxamuud Cali Yuusuf iyo madaxweyne Axmed Cawaale iyo wasiirka wasaaradda beeraha ee dalkaasi Djibouti Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali oo ku wehelinayeen labada safiir ee Soomaaliland iyo Djibouti oo kala fadhiya labada dal Cabdifataax Siciid Axmed iyo Xuseen Cumar Kawaaliye ugu dambeyn safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku joogo dalka Djibouti iyo wafdigiisa ay ku joogaan dalka Djibouti ayaa safar shaqo oo qaadan doona maalmo kooban sidaas ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Ismaaciil Maxamed Shiglan wararka bulsho Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom